kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada DSTV. waxaan warbixinta ku eegi doonaa shirkii u dhaxeeyay madaxda Soomaalida iyo sidoo kale deeq-bixiyaasha beesha caalamka ka dhaca Muqdisho. kala weyn ayaa ka muuqday shirkaasi. maxaa dhici kara haddii sidan loo kala aragti duwanaado? madasha murashaxiinta ee xilka madaxweynaha Soomaaliya oo guddi magacaabay iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ambabaxaya maamulada galmudug iyo Puntland. qodobadaas oo idil ayaa ku jeexjeexi doona inta muuqaalkan socdo. marka hore fadlan daawade haddii tahay markii ugu horreysay soo daawato muuqaalka like sar subscribe sar channelka gabbalaalkana furo mahadsanid. aan ku bilownay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulanka Soomaalida iyo beesha caalamka ee loo yaqaano Somali Bersha Forum. kulankan oo markii afraad dhacay ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay labadii waqti ee ugu dambeysay, halka labadii hore ka dhacay London UK iyo sidoo kale Brussels. kulankan waxaa soo qabanqaabiyay waxaa ka soo qayb gala madaxda dawladda federaalka, madaxda dawlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda beesha caalamka. kulankan oo todobadii Soomaalida magaalada Muqdisho waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, halka shanta madaxweyne dawlad goboleed ay uga qayb galeen qadka isgaarsiinta internetka ee loo yaqaan Zoom-ka. waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Marfinish iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka oo halkaas ku sugnay. kulankan waxaa lagu jeexjeexay arrimaha amniga, doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha dhaqaalaha. arrinta ugu weyn ee la isku mari waayay ayaa ahayd arrinta doorashooyinka. arrimaha doorashooyinka ayaa la isku mari weysanay gaar ahaan qaybta Jubbaland. madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland iyo dawladda federaalka ayaa aad u kala aragti duwanaa. markii la fiiriyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada kale, madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa aad uga aragti duwanaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo hormuud ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kulankaasi shir gudoominayay. madaxweynaha Jubbaland oo kulanka ka hadlayay ayaa yiri ra'iisul wasaare musharax ma tihid ee doorka aad leedahay qaado. markii Puntland doorashadeeda ku qabsatay 2 meel, halka galmudugna ay sidoo kale ku qabsatay 2 meel, Hirshabeelle ay sidoo kale ku qabsatay 2 meel, Koonfur Galbeedna ay ku qabsatay 2 meel, Jubbaland ma hal meel ay ku qabsanaysaa oo gobolka Gedo adinka ayaa qabanaya. hala qeexa buu yiri meesha Jubbaland ay ku qabanayso, haddii kale buu yiri soo saara war qoraal ah oo aad ku sheegaysaan inaad Gedo la wareegteen sababna u yeela. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa ku nuuxnuuxsaday ciidamada dawladda federaalka ee jooga gobolka Gedo, asagoo sheegay inaysan gobolkaasi Gedo ka jirin wax maamul ah, hase yeeshee dhankeeda ay ka taliyaan jamhado ay dawladda federaalka u soo dirtay, asagoo markaas u jeeday ciidanka dawladda federaalka ee halkaasi ku sugan. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabayay hadalka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa yiri waxaan filayaa inaad ka cudur daaran doonto ciidamada gobolka Gedo ku sugan oo ciidamo Soomaaliyeed mana ahan jamhado. halkaasi waxaa laga dheehan karay kala aragti duwanaansho aad u weyn oo ka dhex jirta madaxda federaalka iyo madaxda Jubbaland. iyo dawladda federaalka ayaa isku qabtay doorasho sanad ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo. ilaa iyo hadda waxaa muuqata in khilaafkooda xal laga gaarin, dawladuna ay ciidamo hor leh ku sii daadgureynayso magaalooyinka gobolka Gedo. madaxweynaha Puntland oo dhankiisa ka qayb galay shirka ayaa sheegay asagoo aad u taageeraya Jubbaland in Jubbaland looga gardaran yahay dawladnimadeediina lagu weeraray ciidamo. wuxuu sheegay in dawladdu ciidamo geysatay gobolka Gedo ay ku weerarto dawladnimada Jubbaland. madaxweyne Dani wuxuu aqaan marka la fiiriyo meel u sii sacabtumaya hadalka madaxweyne Maxamed Islaam Madoobe. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa xusay in Jubbaland
ay xaq u leedahay inay gobolka Gado iyadu gacanta ku hayso dowladda federaalkuna ay madax bannaaydo ayna ku jirto dastuurka Jubbaland inay Jubbaland maamusho gobolkaasi Gado. madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale xusay arrinta gudiyada doorashooyinka ee soo xulaya xildhibaanada gobolada waqooyi ama Somaliland. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku baaqay in la bedelo gudiyada lagu muransan yahay ee federaalka soona xulaya xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland, isagoo soo jeediyay in laga talageliyo hoggaanka siyaasadda oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni wuxuu u ekay nin dowladda federaalka mucaarad ku ah una sacabtumiyay mucaaradka iyo sidoo kale dowlad goboleedyada mucaaradka ku ah dowladda federaalka, walow isagoo uu ka mid yahay dowladaha mucaaradka ku ah dowladda federaalka. haddana madaxweynaha Puntland xifaalta gooniyu kalama dhexeeya fila Soomaaliya sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay qaadacday dowladda federaalku doorashadu ku soo baxay. madaxweynaha Koonfur Galbeed oo asagoo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ku jiro qodob oranaya inuu soo magacaabo ra'iisul wasaaruhu guddiga soo xulista xildhibaanada ee gobolada waqooyi, isla markaana uu qayb ka ahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo ka soo jeeda goboladaasi waqooyi. heshiiskaasna aysan ku jirin wax sheegaya inaan ra'iisul wasaaruhu soo magacaabi karin. wuxuu sheegay oo amase uu tilmaamay madaxweyne Cabdicasiis xasan maxamed Laftagareen in la tixgeliyo hanaankii loo maray wuxuu ku baaqay madaxweyne Cabdicasiis xasan maxamed Laftagareen in la tixgeliyo hanaankii doorashooyinka ee la wada gaaray. wuxuu sidoo kale tilmaamay inuu yahay gudoomiyaha aqalka sare oday Soomaaliyeed ayna ku tixgelinayaan odaytinimadiisa. Cabdicasiis Laftagareen wuxuu u ekay ninka hortagayay hadalka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ee ahaa in laga talageliyo dadka ugu horeeyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ahna siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi. madaxweyne Laftagareen wuxuu ekay difaacaya dowladda federaalka. Laftagareen iyo dowladdu waa isla safan yihiin haddii aad fiirisid dhinaca siyaasadda. maamulada kale Laftagareen waa uga dhow yahay dowladda, waa xubnaha yahay madaxweynaha maamul goboleedyada midka mar walba ugu dhow dowladda federaalka. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo asagoo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay uguna baaqay siyaasiyiinta inay joojiyaan carqaladeynta doorashada ayna ka fogaadaan wax kastoo keeni kara kala irdhoobis. madaxweynaha ayaa ku baaqay in wax kastoo kala irdhoobid keeni kara ay dhibaato ku yihiin qaranimada dalka. dhanka kale musharaxiinta mucaaradka ee isbedel doonka ayaa ku dhawaaqay guddi doorasho oo la magac baxay guddiga badbaadada doorashooyinka. guddigan oo ka kooban 28 xubnood ayaa samaystay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen. waxay u howlgali doonaan sidii guddi sharci ah haddii aan arrintu isbedelin. xaalku waa isbedelin doonaa, waxaana ka dhalan kara labadan guddi 2 madaxweyne 2 baarlamaan iyo sidoo kale 2 dowladood oo isgarab taagan sidii sanad ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo ee Jubbaland, halkaasi oo lagu kala doortay 2 madaxweyne. haddii ay dhacdeen 2 madaxweyne lagu kala doortay magaalada Muqdisho waxay sababi kartaa dagaal ay mar kale Soomaaliya cagaha la gasho. aad ayay uga walaacsan yihiin shacabka Soomaaliyeed, waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ka soo yeeraya baaqyo isdaba jooga. beesha caalamka iyo shacabku waxay ku baaqayaan in si degdeg ah arrintan loo joojiyo lagana heshiiyo qaabka loo mari lahaa doorashada. dowladdu waxay ku adkaysanaysaa in guddigeedu sharci yahay halka mucaaradku ay saluugsan yihiin. guddigan mucaaradku ay soo saareen waa howlgalaya, hadduu howlgalasa dhibkiisu wuu badnaan doonaa. beesha caalamku waxay ku celcelinaysaa inaysan aqbali doonin in la sameeyo guddiyo isdaba joog ah ama isbarbaryaacaya. tanjiraha u fadhiya Soomaaliya Mareykanka tanjira Donald Yamamoto ayaa sheegay inaan la aqbali doonin marnaba aysan rumaysan doonin guddiyo isbarbaryaacaya. sidoo kale waxaa halkaasi khudbada ka jeediyey
Ben Vander iyo sidoo kale Nicholas Berlanga waxay dhammaantood sheegeen inay Soomaaliya dhanka ammaanka ka wanaagsan tahay hase yeeshee aad u malaysay inay ku fashilantay dhanka doorashooyinka. in ka badan 14 musharax ayaa ku midaysan guddigan ka kooban 28 xubnood gudoomiyahana samaystay ilaabana hawshooda. guddigani xaalkiisu ma sahlana oo arrintu waa allow sahal. shacabka Soomaaliyeed ayaana markasta ku celcelinaya dagaal dooni mayno iyo sidoo kale hala joojiyo guddiyada badan isfahan ayaana deeqa. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inuu aadi doono ama booqasho ku tagi doono maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug iyo Puntland ayaan aadi doonaa ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu. waxaan tagi doonaa Garowe, Gaalkacyo iyo sidoo kale Dhuusamareeb. arrintani ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku shaaciyay bartiisa Twitterka isagoo sidoo kale afkiisa ka sheegay ilaa iyo haddana dad ayaa oranaya ra'iisul wasaaraha suurtagal kama ahan inuu aado. waxay shakiga u gelinayaan inuu bartiisa Twitterka ka saaray ra'iisul wasaaruhu hadal oranayay inuu aadayo Puntland iyo Galmudug. Puntland sidaan ognahay waxaa khilaaf xooggan ka dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo Galmudug iyo Puntland maadaama aysan isjeclayn amase uu khilaaf ka dhaxeeyo ayaa la u badinayaan inuusan aadi doonin. madaxweynuhuna uu kula taliyay inuu iska dhaafo safarkaas. ilaa iyo hadda si dhab looma oga sida uu bixi doono ra'iisul wasaaruhu, laakiin ra'iisul wasaaruhu hadduu baxo waxaa la filayaa inay arrintu isbedesho oo Puntland laga soo dhaadhiciyo inay taageerto guddiga doorashada ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu. guddiga ra'iisul wasaaruhu haddii uu taageeraan dowlad goboleedyadu waxaa meel bannaan ku soo dhaci doona madasha musharaxiinta iyagoo keligooda ma suurtagalayo guddigan inuu dhaqan galo. hase yeeshee haddii la safan yihiin 3 ama 2 waxaa suurtagal u noqon karta inuu u dhaqan galo una shaqeeyo sidii guddi caadi ah. taas waa tan kala qaybin karta oo laba dowladood Soomaaliya ka dhigi karta, waana midda ay diidan yihiin dadka Soomaaliyeed. maxay kula tahay adiga? fadlan haddii ay tahay marka ugu horreysay soo booqato subscribe sar, like sar muuqaalka, kambalelkana furo si aad u hesho markasta wararka xaqiiqda ah in halkan ku soo baahino.